وأرور هوري يتولد لاندير وأنا حسوس تصبح داس جمعة أي هاي وحلو رأيان مقالة السوق لي وأنا سوتشر ماذا waxaan soo iibsaday laba sakiinadood anigoo shalano cayar ahna jeebka ku sita waxaan aroortaas damacsanaa inaan timaha soo jarto oo maadaama tuulada aysan lahayn goob timaha lagu jarto oo ra'iisla ah waxaa timaha lagu goostaa shanla iyo makiinad ama sakiin hadba sidaa u taqaanid aroortaas waxaa aan la balansanaa nin daa'ira oo aan aad saaxiibo nahay oo barkhad leh waa nin yaro anaba lagu hayo sidii saaxiibtinimad lahayd ee uu timaha iga jari jiray isagoo aan wax lacag iga weydiin jirin tima jaristu waa xirfad dadkuna ma wada laha balse isagu xariif buu ku ahaa wuxuu furaa oo xaasinimo uu ka marnaa sidoo kale waxaan jeeb ku sitaa oo aan xalay soo iibsaday xinna balaag aan rabo inaan isna marsado kadib kolkaan timaha jarto markaan suuqa saa u soo galay ayaan isla markiiba isha ku dhuftay meel lagu xuunsan yahay haddana ku wargalana waxaan soo ogaaday in magaalada meel xoogaa u jirta ay laba gaari qaad isku galeen waa gawaadhi qaad oo saaka gudubtay raggii gawaadhida watay mid ka mid ah oo dhaawacaya tuulada la keenay dadkuna way eegayaan sidaas oo kale ayaan nasi eegay waxaan arkay inuu lidan yahay kadibna waan iska dhaafay waxaan u jahaystay dhanka xaafadda yarka aan raadinayay ee aan rabay inuu timaha iga soo jaro waa barkhad leh isi soo helay oo dhanka xaafadda ayaan isu soo raacnay waxa kaloona soo raacay wiil dhalinyaro ah oo ay barkhad leh iskuulad yihiin xaafaddeeda ayaanu nimid oo waxaan jirkaama ku tiiriyay kaariyoonkayga xasa si aan biyo uga soo dhaamiyo barkad aan sidaas nooga durugsanayn oo noo muuqata halkan iyo deegaanada la mid ahba saddex qaab baa biyaha lagu helaa oon mid afraad lahayn waa inaad kaariyoonkaaga riixato oo aad daraamada saarato iyo inaad gacanta kusoo laalaasato jirkaamada iyo inuu dameer kuu shubo oo aad xamaalka iska bixiso haddii aanay biyuhu u iibahayn anigu waxaan biyaha kusoo dhaamin jiray kaariyoonkayga oo aan iga dhicin gaadhi 8 boqol ah si maalinle ah ayaan shaqadaas u qaban jiray balse subaxdaas waa iga xasuus dheer tahay maalmihii kale sababtuna waa dhacdada argagaxa leh ee isla maalintaas aan la kulmay ma aha tii xagga hore aan ku soo sheegay ee dhaawaca ninkii jawlaha ahaa ee shilka galay se tani aad bay uga xanuun badan tahay dhab ahaantii ka soo baxnay xaafaddii aniga barkhad leh iyo erkilena weelanayay furihii barkadda iyo kaaryoonka waxaa noo dheer agabka aan timaha ku jarin lahayn waxaanu ku horeynay marka hore inaan biyaha soo dhaamino oo hadhow geeda barkadaba ka fogin harkiisa aan timaha kusoo jarno sidii baanu samaynay kaaryoonkiiyo biyeysan baan ogteeda soo qatibinay kadibna timihii inaan jarno ayaanu guda galnay waa xilli barqa ah oo cadceedu aad bay dhawac u tahay si harka geedka quraca ah ee aan horqodalka safadhina aad buu u macaan yahay waa hadh naxariis ku laran tahay oo qabogiisa horda kugu qabanayso isla xillidaas waxaa noo daaran heesa aan isku madaalino oo mobilka ka shidan heesaas waxaan kasii xasuustaa heestii durdurada ee cabdiqaadir macalin jubba ku luqeyn jiray dhab ahaantii marnaba dhiile ma aanu filayn waxaanu qorsheynayay kadib markaan timaha ka jarto inaan jimca waaciid isu diyaariyo oo aan khamiiskayga ku kaawadiyey hore ee dhuxusha iyo cimaadeeda ku turto kadibna magaalada aan hore u galo aaggaan timaha ku jaranayno waa meel koonaha tuulada ah oo tuulada nagama qarsoona waana noo muuqataa waxaa daaqaya maqashii adhigii saaka magaalada ka fufay oo qaybtood ciyaal yarar baa ka dhex muuqda qaar kalena waa cidlo oo cidba lama joogto sidoo kale waxaa tuulada afarta geeska ka soo qulqulaya oo ka soo gelaya reer guuraagii oo soo magaalaysi tegay qaarkood caagado caano yudhi iyo afar qaado ah ayay dhabar ku sitaan ama la laadinayaan qaar jawaano ay raashin qoysas ugu soo dooneen ayay wataan qaar kalena neef adhi ah oo ay soo iibgeysteen bay jiidayeen sidoo kale baraagaha nagu xeeran waxaa ka cabaya oon oo xilli jiilal ah reer guuraaga qaar kalena naftooda ayay wadaan oo ay soo shirtageen adigu waxa ay ahayd maalin sida maalmihii hore uun ay noloshu u socotay si dharaaruhu dhacdooyinka ay dhabaanti ku kala duwan yihiin wax saacad ka yar markaan geedkii joognay oo aan timihii jarnay buu yar kale oo shaaf la dhaho dib naga soo biiray xogaa markuu nala fadhiyey ayaanu hal mar sikadiisa u maqlay dhawaaq aanu la salba baqnay oo u eg xabad weliba hubka nooc waaweyn ah dhab ahaantii waa aanu yaabnay ismarnaba ma aanu filan dhiila sidaas u weyn su'aalo badan ayaanu isweydiinay qaarkayaga ayaa dhahay waa taayir gaadhi waxa qarxay qaar kale ayaa dhahay may waa qor la baraweynayo ismarnaba maankayaga kuma ay soo dhicin wax dhiila u eg sababtuna waa nabad halka jirto oo ah wax aad ilaahay loogu mahadiyo isla daqiiqadahaas ayuu soo wacay nin aan saaxiibanahay oo lagu magacaabo maxamed cali xasan wuxuu igala soo hadlayay meel ayda tuulada ah oo lagu magacaabo faarax qaaje waa qiyaastii saacadii bar magaalada ka durugsan war la daaqsimeed degmadu degto wuxuu soo weydiiyey sida ay wax u dhaceen si waxa aan ugu warceliyay inaan amba xog ka hayn waxa qarxay si aan wada maqlaynay oo anna koonaha magaalada aan timaha ku jaranayo si magaalada aan dhex joogin dhab ahaantii
waan rumaysan waayay marka hore inuu masaafada intaa le ka maqlayo bugta iyo dhawaaqa aan maqlayay ee tuulada kaaga dhacay. Se dhaar buu igu maray inuu miyiga joogo oo xalay reerkooda ku carraabay halkaasna uu ka maqlayo waxa dhacay. Markaas ayaa dareen dhiilal hay galay oo aan ku su'aalada isweydiiyey. Si annagoo weli meesha ka dhaqaaqin ayuu dhanka bari naga soo galay Xamsi oo ordaya waa wiil yar oo ay walaaliyihiin Shaafigna la fadhiyay geedka hatimaa ku goosanay. Isla markiiba waanu wada boodnay oo Shaafiba xagga yarka u dhaqaaqay wuxuuna u sheegay wax aanan maqlayn si dareenkiisa bedelay. Isla markiiba waa yaaceen oo dhammaan yaryarkii oo dhan aniga iyo Kaariyoonkii meesha naga fardhadeen. Markaasaan xaqiiqsaday inuusan xaal ku samayn. Kaariyoonkii oo sida jirkaan saaran yihiin ayaan sida markuu maran yahay oo kale loo orday anigoo cadaadis gudaha ka dareemaya aadna u neeftuuraya. Xaafadeedii baan xagga dambe ka soo geliyay iyadoo Kaariyoonku jirkaamada ka dhowkaysan yihiin ayaan orod ku dhaafay. Sekadii koowaad markaan sidaa uga wareegay ayaa layga hor keenay Idil oo bararanaysa oo hooyada Maxamed oo halkan ku ogaan doontaan waxa ku dhacay. Waan fereeray oo yaabay dhankii laga soo waday ayaan u sii dhaafay anigoo dhididka igu horeeyo argagax iga muuqdo. Waxaa madaxa ilaa qaybo wejiga ka mid ah kaga dhamooqan madoobe sidaan saaka timamarsaday garan maayo goor ay ugu baaday. Istiraarka suuqa kolkaan sidaas uga soo laabtayba bartanka suuqa ayaan arkay meel dad aad ugu xunsan yihiin. Waa tuuladii yareed oo u ekaatay gobol rag iyo dumar waayeel iyo carruur islaan iyo oday wiil iyo gabadh waa la hoganayaa sawaxanka qaylada iyo buuqa yeedhayana aad baad u yaabaysaa. Bartanka tuulada ay ku yaalaan geedaha mirmirida ah ee idiin muuqda iska soo horjeeda ayaa aad loogu xusaya. Anigoo tiicaya oo si gaabis iyo rajo xun ka muuqata u soconaya ayaan dhowr qof mar mid su'aalay waxa meesha ka dhacay. Si qof ah si uu ugu jawaabaa isagoo warcil qumana siinin oo uga dhaqaaqa. Waa la wada argagaxsan yahay si qofkii u warcelinta roona ayaa igu dhowr soo eg gaadhiga nahooda ah ee halka taagan. Waa gaadhi lagu wada shamuunsan yahay oo la dul hoganayo. Isla markiiba xaggii nahooda ayaanu dhaqaaqay. Iska joog lahayda dhab ahaantii waxaan indhaha ku dhuftay noloshayda wixii ugu naxinta badnaa ee aan arka maalintaas. Waa Maxamed yarihii deriskeenna ahaa iyo Cabdifataax oo dhaawac ah dhiguna ka horeeyo. Ma ogeyn siday wax u dhaceen se waxaa la ii sheegay in xabad weysoo ku qorxday oo ay sidaas yeeshay. Waxaa sida jawaan la rabo in hoggaan ama seto laga soo u rifnaa gacmihii Maxamed. Gacmuhu inta hore ee dhudhunka ayay ka go'een waxaana ka soo laalaaday hilbo aad indhaha siin karin oo haddii adeegtid ilma kaas doodanayso. Maxamed sidoo kale indhaha ayuu dhaawac culus ka qabay oo waxa muusan arkayn balse isaga iyo Cabdifataaxba ma shaqo weyn ma gaadhin labadoodaba. Cabdifataax isagu waa u roonaa balse Maxamed baa aad u sii daraa. Dhab ahaan daqiiqadahaas waxay ii ahaayeen kuwo aan dareemay qoystii ugu weyneed abid noloshayda. Waa daqiiqado aan arkay argagax la sheego oo aan foolka fool la kulmay. Calool adayg baan isku tuumiyey si ilin baa iga soo dareertay. Waxaan is iri qof dunida kaa beer jilicsan ma joogo. Jawiga goobtu aad buu u qasnaa xaaladdu waxay ahayd mid aan la qiyaasi karin. Dharaartaas waxaa la odhan karaa nolosha la way istaagtay oo isla saacadaas qof walbaaba waxa uu dhigay shaqadii uu hayay iyo wax walba oo ku hadlana. Kaliya hal dareen baa nawda hayay kaas oo ah xanuunka gudaha laga wada dareemayo ee ku saabsan dhacdadan ugubka. Tuuladu ma leh ambalaas iyo adeeg caafimaad oo buuxa sababtaas darteed isla markiiba waxaan hal uga carray dhallaankii yar ee dhibaatadu gaadhay waxaana loola jahaystay dhanka iyo wardheer. Xawli soo gaadho ku socdo ayuu wadada dheer ka booday. Wuxuu sii maray Kurtunle oo dhanka wardheer naga sii xigtay halkaasoo adeeg caafimaad oo fiican laga helayo. Isla maalintaas waxaa la geeyay labadii wiil wardheer halka laandheerna ay u ahayd maalin xanuun badan. Waxaa tuulada laga ururiyay xoogay lacag ah oo laga dabdiray dadkii baxay ee wiilasha yar qaaday. Wardheer waxaa lagu gaamuray labadii gacmood ee Maxamed halka Cabdifataaxna lagu soo dhayay. Indhihii Maxamed waxba waa laga qaban kari waayay halka Cabdifataax isagoo raanaday oo maalmo kadib magaalada lagu soo ceshay. Maxamed isaga jishay ayaa loo qaaday oo muddo lagu hayay halkaas ayaana la isku dayay wax laga qabto dhibaatadiisa balse waa laga qaban kari waayay. Aniga dhibaatadaas wiilasha yar gaadhay si gaar ah bay ii saamaysay. Wax walba waa ay dhaceen dadaal aadmi waan karnaa wax kale sama awoodno. Maalintaas galinkeeda dambe ayay yimaadeen ciidan ka socda santarka qararo. Meesha carruurta ka soo hartay waxa qarxay ayayna eegeen sama aysan wadaan qalab meena baaris oo haddadaas ku jirana wax kale war looma hayo. Maxamed yare in muddo ah ayaa jigjiga lagu hayay waxba looga qaban kari waayay. Dhankan iyo garow ayaa loo soo gudbiyay si iyadana waxba looga qaban kari waayay. Dhab ahaantii Maxamed wuxuu u baahnaa dhaqaale xoog leh oo ka caawiya dhakhtar dibadda ah sama uusan helin. Muddo kadibna tuuladii Laandheer ayaa lagu soo celiyay halkaas ayuu isagoo gacmala indhihiina beela yeela. Waa xaalad aan firiir iyo naxdin leh. Ilaahay caafiyo Maxamed. Cabdifataax isagu wuu roonaaday oo isla maalmihiiba
waa la soo celiyey. Dhaawac yar oo fudud ayaana gacmaha ka soo gaadhay, se isaga lixaadkiisu wuu dhan yahay. Aad buuna u roon yahay. Ilaahay ha u siyaadiyey.